daawadayaal ku soo dhawaada janalka Baadisooc waxaan toddobaadkan u dabaaldegaynaa maalmaha xorriyadda oo ah maalmihii ay dadka Soomaaliyeed iska dulqaadeen gumeystii ku soo duulay dalkeena isla markaana aan yeelanay calan haddaba kadib 64 sano oo aan haysano xorriyadda uu dhiig badan nooga daatay ma la isdhihi karaa riyadii ay lahaayeen dadkii dhiigooda u daadiyay xornimada way hirgashay midnimadii iyo walaalnimadii dadka Soomaaliyeed ee cadawgii awoodda badnaa isaga dulqaadeen maanta halkee maraysaa dadkii Soomaaliyeed ee taagnaa habeenkii la surayay calanka ee midnimada walaalnimada iyo guusha ay guud ahaan Soomaalida gaartay awgeed la ilmeeyay dareenkii wadaninimo iyo daljaceelkii qalbiyadooda ku weynaa anaga xageennga aaday dadkeena waxaa mideeya waxa ugu weyn ee ummad wadaagto oo ah saddexda shay ee ugu muhiimsan ee isku haya bulshada kuwaas oo kala ah dhaqanka diinta iyo luqadda intaba waan ka mideysanahay haddana waxaan nahay ummad aad u kala fog oo qofba kan kala cadow ku yahay maxay tahay dhibaatadana dhex taala ee isu aamin la'aanahay siyaasi kursi doona odayaal diiwaan geliya inta xunxun ee taariikhaha colaadaha dhex maray beelaha Soomaaliyeed wadaad aan cilmi badan lahayn oo fatwada iyo dhalinyaro ku soo barbaartay fikirkaasi ayaa la isdhihi karaa waxay sabab u noqotay in dalkeenu maanta taagnaado meel ka liidata halkii uu joogay xilligii gumeystaha dad waxa uu nasiib daran qofkii aamina in walaalkii cadowgiisa yahay Soomaali waxay tiraahdaa walaalo isnaceebi way xoolo yareeyaan wayna xabaalo badiyaan walaalka oo aad dulmisayna guul kuma gaaraysid haddii ay ka dhaadhacdo in qof Soomaali kula ah uu cadowgaaga yahay adiga oo laga yaabo in uusan jirin wax idin dhex maray isla markaana aad aqbasho in walaalka uu cadowgaaga yahay waliba qofka aad ka dhageysanayso yahay qof aan cilmi iyo aqli ku dheereen waxaad aqbashay in aad walaalka dulmiso waxa nasiib darro inay ka dhaadhacdo in qof Soomaali kula ah uu yahay cadowgaaga iyadoo aysan jirin dambi uu si gaar ah kaaga galay balse nacayb la xiriira heybtiisa ama waxa uu yahay darteed aad isaga fogeynayso qofkaasi ummad walba waxa badbaadisa dhalinyaradeeda maanta dadkeenu wuxuu u baahan yahay dhalinyaro ka badbaadisa halista ay leedahay qabyaaladda qabiil awgii qof ha u nicin qabiil dartii qof ha u dilin qabiil dartiina qof dambi ha ku caawin qabiil dartii qarinimo ha u diidin qabiil dartiina dantaada ha u ilaabin kama faa'iidaysid waxaan dambi alla ka fogaansho ahayn maxaa yeelay qabiilku waa geed qalalan oo harsado dambiilaha u baahan in cadaalad la marsiiyo haddii aad doonayso inaad wax un ka ogaato qabiil iyo waxa uu yahay waxa hore inoogu sharaxay Allah u naxariistay Abwaan Cabdiqaadir Xirsi Yamyam oo ku macneeyay inuu yahay labada eray ee isku tolan ee kala ah qab oo ah kibir iyo iil oo ah xabaal maanta waxaan u baahannahay inaan dadkeena ka badbaadino qab iyo iil